waxaan ahay wariye Cali Taliya Cabdi waxaan idinkala soo hadlayaa magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle maanta oo ah 6 May 2020 waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii 18aad ee ka soo wareegatay goortii dhidibada loo aasay warbaahinta shabakadda Shabeelle qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgasha gobolka Shabeellada Dhexe bulshada qaar ee Jowhar ayaa shaqaalaha iyo maamulka Shabeelle la qaybsaday hambaliyada munaasabadda sanad guuradii 18aad ee ka soo wareegatay xilligii dhidibada loo aasay warbaahinta Shabeelle ayagoona dhanka kale cambaareeyay tacdiyadii loo geystay wariye Safiya Cabdulle Cismaan iyo kaamiramankeedii Cabduqaadir Cabdullaahi Haldoorka ayagoona xubno ka tirsan maamulka degmada Waaberi ay jirdil u geysteen kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu hambaliyeenayaa sanad guuradii 18aad ee ka soo wareegatay aasaaskii shabakadda Shabeelle oo haatan kamid ah warbaahinada ka howlgala dalka gaar ahaan kuwa ugu horeeyay madaxa bannaan ee Muqdisho ka hana qaado shabakadda Shabeelle waxay kamid tahay shabakadda wariyaal aad u fara badan caan ah ee soo mareen kuwaasoo haatan tacdiyo aad u fara badan loo geystay wariyaashooda qaar la dilay qaar jirdil loo geystay qaar dalka ay ka carareen marka waxaan leeyahay hambaliyo meel walba ay joogaan wariyaasha shabakadda warbaahinta Shabeelle oo haatan horumar ka sameeyay dhanka warbaahinta sida TV oo ay ku soo kordhiyeen dhawaan hawada waxaan leeyahay maamulka iyo shaqaalaha warbaahinta Shabeelle hambalyo 18aad sanad guuradii 18aad ee ka soo wareegatay waxaana si aad u cambaareynaya dhacdadii ugu dambeysay ee lala kacay mid ka mid ah wariyaasha ka howlgala raadiyaha TV-ga Shabeelle iyo kaamiramankeeda waxaana cambaareynayna cid walba oo dhibaatadaas u geysatay hambalyo ayaan u leeyahay warbaahinta Shabeelle shaqaalaha iyo wariyaasha iyo maamulka halkaas ka howlgala anigu waxaan ka tirsanahay ururka haweenka gobolka waxaan ka ahay xibin maadaama aan haweenka ka tirsanahay waxaan ahay haween u hadlaysa haweenka Soomaaliyeed ee gobolka Shabeellaha Dhexe ama Hirshabelle waxaan u hambaliyaynayaa idaacadda Shabeelle oo u soo dhabar adeegtay sanad guuradii 18aad maadaama ay dhidibada u soo aastay muddo badanna ay u soo dhabar adeegeen waxaan u hambaliyaynayaa dhalinyarada ka tirsan idaacadda Shabeelle waan u hambaliyaynayaa hambalyo ayaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh asxaabta waxaan idin leeyahay ramadaanul kariim aniga waxaan ahay Cabdiraxmaan Buwaal Maxamuud oo aad u taqaanaan Catoshare maanta waxaan doonayaa in aan halkaan ugu hambaliyeeyo sanad guuradii 18aad ee warbaahinta iyo TV-ga Shabeelle TV-ga Shabeelle waa TV wax badan u soo qabtay dalkeena Soomaaliya dhibaatooyin aad u fara badan ayuu la soo kulmay waan kaga mahadcelinayaa sanad guurada 18aad ee TV-ga maadaama maanta ay tahay 6 May oo 2002 la aasaasay TV-ga waxa uu soo tabiyaa barnaamijyo aad u xiiso badan sida wararka arrimaha bulshada isboortiga iyo sheekooyin aad u xiiso badan sidoo kale waxaan aad u xiiseeyaa barnaamijka ay soo tabiso Faadumo Cabduqaadir oo ah suxufiyad aad u weyn oo soo tabisa barnaamijka arrimaha bulshada oo ay hadii ay noqoleen maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale barnaamijyo kale oo aad u xiiso badan sidoo kale waxaan aad u dhaliilayaa ciidanka dalka iyo sidoo kale cid walba oo dhibaateynayso wariyaasha madax banaan maadaama dhacdadii u dambeysay ay ahayd dhacdadii ku dhacday Safa Cabdulle Cismaan oo ah wariye ka howlgala warbaahinta TV-ga iyo telefishinka Shabeelle waxaan leeyahay mar walba wariyaashu waa indhaha bulshada waxa soo baxay waa wariyaasha dadka u doodila bulshada waa saxaafadda waxaan jeclaan lahaa in aan saxaafadda marnaba laga hor istaagin aragtidooda aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta aan ka soo muuqdo TV-ga Shabeelle maadaama ay tahay maalintii la aasaasay TV-ga Shabeelle waxaan u hambaliyaynayaa dhammaan shaqaalaha guud ee warbaahinta iyo TV-ga Shabeelle iyo inta daabata waxaan leeyahay ramadaanul kariim ramadaan mubaarak bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan hambali oo direena maadaama aan shacabka ka tirsan maamulka gobolka Hirshabelle gaar ahaan caasimadda Hirshabelle magaceedu waa Caamir Cabdiasiis idaacadda Shabeelle telefishinkeeda iyo raadiyaheeda iyo dhammaan agaasimaheeda maca shaqaalaheeda meel kasta ay joogaan kuwa jooga caasimadda iyo kuwa gobolada jooga iyo kuwa degmooyinka jooga iyo kuwa tuuliyaasha jooga iyo kuwa dibadaha jiraba waxaan leenahay aasaaskii 18aad mar idaacadda Shabeelle maca telefishinkeeda oo hambalyeynayna meel kasta ay joogaan dhammaan shaqaalaheeda iyo ayadaba
annagana sidaas oo kale waxaan jeclahay in aan u hambalyeeno meel kasta oo joogto bulshada waayo idaacad wax badan soo shaqeyso waa wax badan u soo dhabar adeegtay dhibaatooyin fara badan iyo dagaalo iyo hanjabaadi iyo wax badan oo aad u badan oo qofka idaacadaha isu dulqaadan karin way soo dulqaatin ayada Shabeelle marka ambali aan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maryam Sheekh Cabdi waxaan kamid ahay dadka magaalada Jowhar waxaan rabaa maanta halkan inaan uga hambaliyeeyo Ilaahay idinkiisa iyadoo Ramadaan tahay sanad guuridii 18aad ee ka soo wareegtay shabakada radio Shabeelle kadib markii dhidabada loo taagay waxaan u mahad celinayaa horta maamulka kala duwan shabakada Shabeelle iyo shaqaalaheeda meel kasta joogan Shabeelle waxaan ognahay in marxalado badan ay soo martay gobollo badan ay ka soo shaqeysay Muqdisho ay ka soo shaqeysay dad badan oo kamid yahay Hiraabo iyo loo dilan asxaab ahayn marka hore dhabar adeeg badan ay soo sameeyeen waxaan ognahay dad badan inay ku dhinteen Shabeelle soo guurguur badan ay sameeyeen haddana wali aysan ka tagin idaacadoodii ay wali ay shabakadii ay gacanta ku hayaan haday noqon lahayd website-kii haday noqon lahayd television-kii haday noqon lahayd idaacadii cid kasta way garanaysaa laakiin waxa jira dhibaatooyin badan oo guud ahaan saxaafadda dalka Soomaaliya haysato iyo handadaad iyo dil dhacdadii ugu dambeysay waxay dhacday daraad maalintii Talaadada maalintii Isniinta ayay ahayd markii ay ku dhacday aadna uga xumaanay wariyihii Shabeelle Safiya Cabdulle Cismaan iyo kaameramankeedii halkaas oo ay ku jireen xilli howlahooda shaqo ay ku jireen oo ay markaasi ka qabanayeen dad aan codkooda dhiibo karin in ay soo bandhigaan haddana ay dhacday dhibaatadii gabadhina lagu daqareeyo dhibaato loo jirdil ayada iyo wiilkii la socday marka dhibaatooyinkaas waxa ay soo maraan ama hal ay leeyihiin saxaafadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan kuwa Muqdisho waa ugu sii daran yihiin gobolada laftirkeeda kama liitaan waxaan leenahay hambaliyo horay u sii socda horay u sii wada tacadiga iyo dhibaatooyinka iyo handadaadaha iyo jirdilka loo geysanayana maalin un bay imaan doontaa isla xisaabtan ay saxaafaddu la xisaabtanto maamulada ka jira Soomaaliya Ali Taliya Cabdi warbaahinta Shabeelle magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Shabeelle